أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد الصوماليات المسلمين تأميلة جوكتان با ولا لي المانت waxaan doonayaa inaan halkan idin ka soo diro baaq ku saabsan kacdoonka bilowday ee lala dagaalamayo ururka argagixisada al-shabaab ee ka bilowday gobolada dhexe waxaan rabaa inaan ka hadlo oo kale inaan ka hadlo mas'uuliyadda dawladda federaalka Soomaaliya saaran iyo sida ay uga gaabisay mas'uuliyaddeeda waxaan kaloo ku sii darayaa waxa jira maamul goboleedyo iyo degmooyin iyo gobollo Soomaaliyeed oo aan kacdoonkaasi qayb ka ahayn wax xogana ka haysan dawladduna aysan u gudbin wax warbixina iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen halganka dib u xoreynta dalka midda koowaad baan ka bilaabayaa hor dawladda federaalka ka bilaabayaa dawladda federaalka waxay leedahay baarlamaan waxay leedahay madaxweyne waxay leedahay ra'iisul wasaare waxay leedahay golo wasiiro kacdoonkan ka bilowday gobolka Hiiraan oo Ilaahay ha sharfeeyay Cali Jeegte gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo bilaabay haddana aad moodid inuu gabaabsay oo joogsaday halgankii halkaas ka bilowday iyo kii waliba ka bilowday gobolka Shabeellaha Dhexe arrintan isku soo koobantay gobolka Mudug iyo Galgaduud dawladda Soomaaliya dawladda federaalka madaxdeeda baarlamaanka goleeda wasiirada siyaasiyiinta kale ee ku xiran dawladda federaalka iyo la taliyaashoodu ummadda Soomaaliyeed kama siin xog buuxda kama codsan ummadda Soomaaliyeed inay halganka kala qayb qaataan maamul goboleedyada ama gobolada ku jira dagaalka ama shacabka Soomaalida ku jira ma sheegin in si guud loola dagaalamo oo maamul goboleed kasta oo meeshiisa kacdoonku hal mar bilowdo oo maamul goboleed walba uu isxil qaamo la siiyana budgetkii iyo hubkii iyo wixii ay ku taakuleen lahayd dawladda federaalka waxay ka mid noqotay maalkii macuusleedii oo kale hadba dagaalku meeshuu ka dhaco ayay leedahay ciidamo xoog dalka u dirnay taakuleen baan u dirnay laakiin ma ahan xog qancin karta ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka waxaan uga fadhinaa iyo golaha baarlamaanku horta baarlamaanku waxay ahayd inuu ogolaado dagaalka in la galo in budgetkiisa la diyaariyo dadkii guddigii hawshaasi qaban lahaa oo ka kooban aqoon-yahano saraakiil ciidamada ah iyo la taliyayaal xagga istiraatiijiyadda dagaalka ma jiraan wax ilaa hadda aan ka maqlay dawladda federaalka inay arrintaasi samaysay iyo cidda u xil saaran dib u xoreyntan iyo qiimeynta kacdoonkan iyo taakulaynta kacdoonkan ilaa hadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ma ay sheegin kacdoonkii kama wada bilaaban maamul goboleedyadii oo dhan wuxuu ka bilowday gobolada dhexe gobollo ka muhiimsan baa jira runtii ummadda Soomaaliyeedna uga muhiimsan xagga khayraadka iyo xagga amniga caasimadaba oo haddii laga bilaabo kacdoonkaas uu ka bilaaban lahaa ay kuwaani iska tagi lahaayeen ayagoo aan dagaalba gelin jooga gobolada dhexe waxaa ka mid ah Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe oo caasimadda labada gees ka ah waxa muuqata labadoodaba inuusan halgan firfircoon ama kacdoon firfircoon isu ka socon laakiin uu ka socdo gobollo dad gaar ah degaan oo gobolada dhexe ah maamul goboleed Galmudug for example oo anigu aan ka soo jeedno oo degmada aan caawdo ay ka soo jeedo ma weydiisan taakulayn kacdoonka ay kula dagaalamayaan al-shabaab wuxuu ka bilowday Hiiraan waxaad moodaa in arrintu ay ku kooban tahay dhowr qoys iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee uusan ahayn kacdoonkani mid ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay diyaar u tahay ama lagu wargeliyay inay kacdoonka ka qayb qaataan waayo gobol kasta dhibaatadiisu qaba maamul goboleed kasta cadowgiisu leeyahay marka waxay ahayd in si xaq ah oo nidaamsan oo lagu qanacsan yahay loo qaybsado hawlgalka kacdoonka budgetka kacdoonka iyo macawisleeda shacabka ka qayb galaya dagaalka oo diyaarka ah in ayagana loogu baaqo inay ka soo qayb galaan balse ilaa hadda waxaan aragnaa madaxweynaha Galmudug iyo Hirshabeelle iyo madaxweynaha federaalka oo gobolada dhexe ku mashquulsan goboladii kale ee sida koonfur galbeed maamul goboleedyada kale iyo Jubbaland iyo maaragtay
puntland wax ka dhaqdhaqaaqa oo kacdoona oo ka socda oo ku xiran kacdoonka halkaana ma jiro wax dowladdu ay abaabushayna ma jiraan wax maamul goboleedyadu iyagu isxilqaabeenna ma jiraan waxaad moodaa inaan nahay dowlado aan shaqo isku lahayn oo daris ah taas waxaan ku eedeynayaa dowladda federaalka xilkeedii kamay soo bixin hawshaani sida ay ku fiicnayd oo ah in si wada jir ah kacdoonka u bilowdo si wada jira waddanka cadowga gudaha looga xoreeyo kadibna cadowga dibadda loo soo jeesto ayay ahayd taasi waxaad moodaa in qorshe gaara dowladda federaalku ay ka leedahay ama xasan sheekh iyo mahad salaad ay ka leeyihiin oo aad moodid in ay rabaan qorshe ka baxsan ummadda Soomaaliyeed ama dowladda ka dhaxaysa ummadda Soomaaliyeed aysan ka warqabin inay fuliyaan taas halkaas oo gudbiya waxaan leeyahay haddii kacdoonkaasi yahay mid xaq ku socda oo labada maamul goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle ay si daacadnimo ah oo aan qabiileysnayn oo aan dangaara ku jirin ay doonayaan inay uga xoreeyaan al-shabaab argagixisada oo dhan gobolada dhexe waxaa la rabay in dadka gobolada dhexe dego dhan la abaabulo kii aan ciidan uga qayb qaadan karin inuu uga qayb qaato dhinaca maaragtay taakulada ciidanka kii ciidan ahaan uga qayb qaadan karaan uu ciidan ahaan uga qayb qaato kii hanti ahaan uga qayb qaadan kara oo hanti ahaan uga qayb qaato oo halgan ku noqdo mid isku xiran ummadda Soomaaliyeed ku midowdo ay u aragto cadowgeeda hal il ku aragto oo ay ka xorowdo dagaalka qabyaaladda ama dagaalka qabiilada ee ka dhaxeeya waayo kacdoonkan oo kale waa kii Soomaaliya xoreyn lahaa haddii loo abaabulo sidii fiicnayd ee ku habboonayd balse waxa ay muuqata in ay tahay uu kacdoonku yahay kacdoon qorshe gaar ah leh haddii uusan qorshe gaar ah lahayn annagu haddaan nahay waqooyiga galgaduud oo ka tirsan maamulka Galmudug waxaan diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano halganka dib u xoreynta dalka looga saarayo argagixisada ciidan ahaan taakulayn ahaan dhaqaale ahaan intaba oo aanu garab istaagno walaalaha kale reer Galmudug si aan uga xorowno cadowga haysta qaar ka mid ah gobolada Galmudug taas halkaas aan uga gudbayaa mid ummadda Soomaaliyeed baan iyadan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ama maaragtay ku boorinayaa in kacdoonkan laga dhabeeyo waayo kacdoonkan haddii si midaysan Soomaalinimo ah loo galo wuxuu keeni karaa inaan waddankeena ka xoreysano cadowga gudaha iyo kan dibaddaba ilaa caasimadda aan isku tagno gobol kastaba oo qaybtiisa oo geeskiisa ka bilaabo halganka si degdeg ah cadowgan gudaha aan iska xoreynay al-shabaab argagixisada kadibna aan danaheena guud ka midowno qabyaaladda iyo dagaalka qabiilaysan iyo maamul goboleedyada xuduudaha lena aan markaas kadib ka tashano saan ka yeeli lahayn oo uu noqdo kacdoonkan uu bilaabay Cali Jeyte iyo gobolka Hiiraan mid mira dhala ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideysato sidaas aan ugu baaqaynaa maamulka Galmudug iyo Hirshabeelle iyo madaxda federaalka ee lugta ku leh annaka saraakiishayadii wiilashii saraakiisha ciidamada oo ku dhintaan dagaalka gobolada dhexe ka socda laakiin macluumaad tacsiyeeyo waa ka xunahay in ciidamada qaranka si kala duwan loo adeegsado oo kuwana loo tacsiyeeyo oo magacooda idaacadaha laga sheego kuwana la qariyo marka ay dhintaan saraakiil badan baa ku dhimatay waqooyiga galgaduud ka mid ah dagaal ka socda gobolada dhexe wax u tacsiyay male wax idaacad ka sheega male wax ciidahoodii la soo xiriiraan male taasina waa ayaan daro iyo xilkasnimo la'aan ka jirta maamulka Galmudug iyo federaalka ummadda Soomaaliya waxaan leeyahay war midooba cadowgiina midooba si kaliya laaba qabyaalad iyo dagaal qabiilaysan waad aragteen inuusan lahayn wax baraka ah anigu waxaan ka mid ahay dadka soo dhadhamiyay qaraarka guurnimada dareemayana inaan ka qayb qaato xornimada Soomaaliyeed in Soomaaliya laga xoreeyo cadowga gudaha iyo kan dibaddaba waxaan ahay dad nin marqaati baan ahay ilaa dowladda kacanka waa soo shaqeeyay 14 sano ka soo shaqeeyay dowladda kacanka u soo shaqeeyay ciidamada qalabka sida waa noqday askari waa noqday sargaal waa noqday shaqaale dawladeed waa noqday marqaati baan ka ahaa wixii waddanka ka dhacay meeshuu ka qalloocday maamulkii hore waa garanayaa dowladda kacanka haddana waan u jeedaa meelaha qaladaadka badan ka jiraan waa Soomaali weynay waxaan leeyahay oo inuu ku adkaynayaa Soomaali weynay horta Ilaahay ka cabsada cabsi la'aanta Ilaahay iyo munaafiqnimada iyo isnacaybka iyo dagaalka sokeeye dhiga islaamka isku daadanaya way horta dhibaatada haysataa waa cari Ilaahay waxaan haysataa sida kaliya uga bixi karnaa waa midnimo inaan iscafino gacmaha isqabsano waddankan inaan xoreysano dibadda iyo gudaha wabillahi tawfiiq